kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa anigoo Cabdiqaadir Shariif oo sheeko cajiib ah idin la socodsiin doona maanta. Sheekadan ayaa waxay ka dhacday gobolka galbeedka ee dalka Kenya. haweeney ayaa ninkeeda ku iibisay lacag dhan 1700 oo shilinka dalka ah, waa in ka yar $20. haweeneydaasi ayaa loo yaqaan Edna Mukwana, waxayna ninkeeda ku iibisay sida ay sheegtay 1700. Edna ayaa ka codsatay haweeneydii ninkeeda saaxiibka uu lahaa in ay siiso 2000 oo shilin ama $20, sidaas awgeedna ay ku qaadato saygeeda. laakiinse haweeneydii kale ayaa awoodi waysay inay bixiso $20, waxayna siisay 1700 oo shilinka dalka Kenya ah oo u dhiganta $17. sidaas awgeedna Edna waxay ka tagtay ninkeedii, waxayna sheegtay in lacagtaasi ay u baahneed si waqtigan haatan iskuulada la furayo ay caruurteeda ugu gado waxa loo yaqaan school uniform ama dharka iskuulka. Edna ayaa sidoo kale sheegtay in ninkeeda uu noqday qamracab, sidoo kalena dumarka daba orda, iyadoo intaas ku dartay in wax faa'iido ah ugu fadhinin ka fiican tahay in 1700 oo shilin oo caruurteeda dharka iskuulka ay ugu gadanaysa ay ka faa'iido roontahay. mar la weydiiyay Edna in saygeeda ay ku laaban doonto ama dib ay u soo ceshan doonto ayaa waxay tiri lagama yaabo inaan dib u soo ceshto, waxayna sheegtay in caruurteeda ay korsan doonto. sidoo kalena sanadka cusub ee 2020 ayna rajeynaynin in dhibaatooyin iyo khilaaf badan oo ay soo martay sanadii 2019 ay dib u sii gasho oo dhibaatadii ninka uu ku hayay ay la sii socoto, maadaama dhibaatooyin badan ay la soo martay. waxa ay tiri caruurteyda anaa korsanaya. sidoo kalena lacagtaasi $20 ama in ka yar $20 oo ay ninkeeda ku gaday ay sheegtay in caruurteeda ay iskuulka uga bixin doonto sanadkan hadda bilowday, sidoo kalena ay ugu gadi doonto waxa loo yaqaan uniform. Edna ayaa khilaafka waxa uu ka imaaday in ninkeeda ay ku dawaaragtay islaan kale asagoo saaxiib la ah, sidoo kalena habeeno badan uu guriga ka soo dhaxay. markii uu ku soo laabtay gurigana ay ka fiijisay. waxaa arrintan laga hadalhayay dhammaan warbaahinta dunida, iyadoo dad qaar oo halkan ra'yigooda kasoo dhiibtay ay sheegayaan in waxa raqiiska ah in beec raqiis ah lagu gada, sidoo kalena waxay sheegayaan in ninkaasi raqiis uu ahaa. haweeneydaasina ay maskax isticmaashay oo waxa ayada ay u baahan tahay ay ku gaday ninka, maadaama ay sheegtay in ay asagu u baahneen. sidoo kale dad badan oo halkan kasoo falceliyay ama arrintan kasoo jawaabay ayaa nin wuxuu yiri waxay ku gaday ninkaas 1700. isbuucii waxa uu yiri haday afar jeer gado waxay noqonaysaa 6800. sanadkiina waxa u soo go'aysaa lacag gaaraysa 81000 oo shilinka dalka ah, waa $800 oo. waxa uu yiri sidoo kalena 5 sano waxay gaaraysaa 408,000, ayadoo lacagtaasi sheegtay ama sida qofka halkan ra'yigiisa kasoo dhiibanaya uu sheegay in lacagtaasi ay haweeneydaasi ku anfici doonto in caruurteeda ay wax muhiim ah ugu sameyso ama noloshooda ay ku wanaajiso. dad badan ayaa halkan ra'yigooda kasoo dhiibtay, inkastoo aan dhammaantood aan sheegi karin wixii ay soo qoreen, aan halkan digu faahfaahin karin. daawade, si aan kula wadaagno muuqaalo ku cajabiyo waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelkan. mahadsanid.